بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. walaalka iyo qiimaha badan oo walaashida sharta badan maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego wax hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo fahamkeeda noloshaada ay wax weyn iska bedelayso. aniguna waxaan maalin kasta halkan u soo galayo walladii la ilaaha ghayruhu uma soo galo inaan like ku raadiyo ama views aan ku raadiyo ama aan shilin ka sameeyo. wallahi shilin kama sameeyo social media arsaaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelo kale oo ii galiya ayaan ka bariyaa oo aan ka raasada. waxaan halkan u soo galo waa li ajli hubbika aan ku jeclahay Ilaahay dartiisa subhanahu wa ta'ala oo aan ka rajaynayo yawm al-qiyaamah aniga adiga in aynu jannada ku kulano biidnillahi al-kariim. anna Ilaahay baan janno weydiistaa oo ma huwa meeshan ku dambeyn doono adna Ilaahay inaan janno ku weydiiyo waxyar Ilaahayna amray amalka saalixa ahne in aynu isagu kaalmayno. Ilaahay waa saga dhahaya wal mu'minuuna wal mu'minaatu gabdhaha mu'miniin wiilasha mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka waa bacduhum waa qaarkood qaarka galay garab u yihiin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. aayadda anigoo ka duulay fi suurati tawba ayaan halkan u soo galaa. maanta waxaan ku wada fariin runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala haduu kugu anfaco noloshaadu ay wax weyn iska bedelaan waana laba kalmadood oo noloshaada wax yar sabir insha Allah ta'ala. حقنا هآذن لايف كلنا هآذن فيوز كلنا هآذن فيديو كلنا هآذن إن يريد القضاء وما لن جمعوين كنا خيرات كوذا إيا بركات كوذا إيا نفحات كوذا وطان ما لها جمعة ذا ما ننتكنا نقا إذا كان دهين بإذن تهي جمعوه وحي وطان بركات كوذا وطان ولالك عمل كستو أو كسو بحجر كاغا فرينتا أنكوذا تنويان عمل كستو أو جر كاذا كسو بحدون نقضى قول إيا فعل iyo haduu noqdo mataqaana oraah wixii ka soo baxa Ilaahay agtiisa laba wajiib ku leeyihiin wax walba ka soo baxa imma in uu noqdo amal nuurani ah amal nuur xambaarsan oo xasanaad ku helayso oo jannada guriga lagaaga dhisayo oo Ilaahay raali aashiisa ku dhaweynayo iyo imma in uu noqdo amal Ilaahay calays ku keenayo oo naarta ku jiiday waa uu labada way hadaan ka aamusan marka ayada ah hadii marka noloshaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala xubbo ka soo baxa uu sida ka dhigay adiga marka waxa laga raba waa maxay inaad smart noqotaa laga raba waa inaad ku dadaashaa amalka saalixa mesela hadaad subhanallah tiraahdo kaliyata subhanallah hadda ma ahya isla daqiiqadaas qasri bu Ilaahay jannada kaaga dhisaya subhanallah yani shajara fil janna andahe shajara fil janna geed jannada ku yaala oo jiridiisu ay dahab tahay 100 yani sano uu hoos soconayo qofka faraska ugu dheereewta yaa marka jannada laga qotaminaya waa subhanallah tirado tobanjeer qul huwa allah hadad akhriso qasr ba jannada laga dhisaya guri villa ya dhihin qasr waa palace guri weyn qasr afka carabiga waxa la yiraahdaa guriga wax walbo naftu ay u baahanto lagu dhaxkeediya qasr yani waxa lagu soo koobay aasaafki iyo waxyaabo loo baahnaayo agaabta iyo xamaanto dhan baa ku dhaxdhan ba Ilaahay subhanahu markaa jannada kaga dhisaya markii jannada lagaaga sameeyo amalka asaga saalixa jannada baaqi kuma ahaanayo waxa jannada ka soo baxaya amalka asaga barakadiisana adduunka ku helaysa halkaad ku dhadhaminaysa hadaad amalka saalixa sameeyay Ilaahay ba ballan qaaday jannada bas amalka saalixa kama shaqeeyo amalka saalixa adduunyada ka shaqeeya effectigiisa iyo saameyntiisa halkaad ku helaysa that's why dadka dhikriga iyo acmaal saalixa ku dhex jira ay u dhahan waxaan ku dhex nool lahay nolol macaan wallahi haday ogaan lahaayeen nolosha aan ku nool lahay dadka mulukta iyo abnaa'ul muluk haday ogaan lahaayeen la jaaladuna bisuyuf bay dadka horan jireen seefahay naga qaadan lahaayeen dadka ahlu macaasida ahne amalka xun marka ay sameeyaan naarti iyo position koodi iyo meelihii buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu diyaarinaysa waa acmaasha naarta lagu goordan ka toobad keenin at the same time adduunkan bay effectigiisa kugu soo gaaraya waliga ma aragtay qof ahlu macaasi ah oo xumaanta laaqda oo farxad ku nool meed aragtay kulligood walwal iyo depression iyo stress iyo gham iyo hami bay ku nool yihiin maxay la amalka saalixa effectigiisa adduunka ay ku arkaysa at the same time aakhirana uu kaaga horeeya hadii marka ay saa tahay maxaa diiday amalka saalixa ku dadaasho inta kaliya ma aha qiyaamaha marka aad timaado labada amal ee amalka saalixa iyo amalka xun qofka amalka saalixa wata wuxuu imanaya baliri tahmiluhu hasanatuhu isoo hasanaadkiisa saaran buu imanaya oo nuur ay u tahay halka qofka sayi'aadkiisu isagoo dhabarka uu saaray dunuubtiisa uu imanaya waa Ilaahay dhahaya yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun waxyaalihi aad sameysay iyo wuzuurti iyo dunuubti oo dhan iyadoo dhabarka ku saaray culeyskooda iyo ximligooda wayahmiluna yani asqalahum wa asqala ma'a asqalihim culaysyo kala daran wixii ay sameeyeen iyo wixii ay sunnayeen iyo wixii dadka ay ugu sheegi jireen dunuubtooda iyagoo dhabarka u saarantay qiyaamaha la keenaya waa amalkiis xumaanta markaad sameeyso maxaa marka diiday walkay qaaliga oo inaad amalka saalixa ku dadaasho
انت كلية معها إلهي سبحانه وتعالى واسقى هي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ابن عباس آيدا مركو فسير يوان كسو قبينيا وحا أوليهي قيامها وحا لكينيا وقفك الله شيء بما قدم وأخر وحا سوهر مرس iyo wixii aad gadaal ka timid oo adu aad sunaysay dad isku dirtay hada tayar burburisay dad wadan burburisay hada heesad iyo fan iyo balaayi iyo qashin aad samaysay hada klaabi iyo meelaha aad furtay wax walba oo jideeyo sunno xun ahne amalkoodii intuu dunida ka shaqeynaya lagu soo hordhigaya ila adiga ayaa keenay hadaad xumaanta sheer garan jirtay inta xumaan ee sheer garaysay dadka daawanaya iyo waxa ay qasayaan adiga ayaa qiyaamaha dhabarkaaga la saaraya. walaalkayga waxa wanaagsan ku dadaal walaashayday waxa wanaagsan ku dadaal. yunabba'u al-insaanu baa loo waramaya yawma idin maalinta qoraxda iyo la kulmaya dayaxa bima qaddama wixii uu hormarsaday. that's why waxa la yiraahdaa qofku marka uu dhinto oo ay naftu ay ka baxdo inaga waxaan niraanaa muxuu ka tagay alla hebel muxuu ka tagay alla hebel muxuu ka tagay caruur buu ka tagay sarta ugu dheer magaaladu ka tagay guryaha waaweyn buu ka tagay doomuu ka tagay maraakiib buu ka tagay alla wuxuu ka tagay agoob buu ka tagay wuulaq waxba kama tagin waxaasaynu nirahnaa inaga markaan bini aadan nahay. laakiin malaa'igtu maxay yidhaahdaan maadaa qaddam muxuu hormarsaday alla muxuu hormarsaday alla maxaa ka horeeya. resourceka ama khayraadka ugu weyn ee noloshaada anfacayana waxa weeyaan waa waxa qalbigaada gala iyo camalka saalix ay samayso. maanta adiga saacadan adiga i daawanaya su'aal baan ku weydiinayaa saacadan adiga i daawanaya maalkaaga iyo guryahaagu hadda miyay ku saaran yihiin miyay kugu dhex jiraan guryahaagu miyay kugu dhex jiraan waa maya lacagtaadu miyay kugu dhex jirtaa waa maya waxa kaliya caawa kugu dhex jira waa qalbigaaga iimaanku uu ka buuxo iyo raalli ahaansho inaad raadisay iyo camalka saalixa waana waxa ku raacaya. haddii marka maalkaagii iyo xoolahaagii iyo caruurtaadii iyo xaasaskaagii caawa adigoo idaawani kaliya aysan kugu dhex jirin qiyaamahana kuma raacayaan kaligaabaa imanaya. marka waxa kaligaa ku raaci doona ku dadaala insha allahu tacaala. baaraka allah fiik. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.